الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaan kusoo jirnay baabkii kitaabka abwaabtiisa ka mid ahaa oo ah dikru akhlaaqi ahli lqur'aan dadka ilaahay qur-aanka ku galadaystay ee qur-aanka macnihiisa fahmay akhlaaqda iyo dabeecadda wanaagsan ee laga doonayo baabkaas baan kusoo jirnay waxaan filayaa inaanu joognay qaliila adaxiki fiima yadxaku fiihi annaasu lisuu'i caaqibati adaxiki in sura haddii qofka saaxibulqur'aanka bishayin shay haddii looga farxiyo oo shay uu ku farxa ilaahay uu siiyo oo mima kiina ka mida yuwaafiqu alxaqa xaqa waafaqaya haddii shay xaqa waafaqsan oo diinka waafaqsan ilaahay uga farxiyo nicmo noocaas ilaahay uu siiyo tabasama wuu dhoolla cadaynaya yacni qosolkii qahqahdaa buu iska ilaalinaya wuu dhoolla cadaynayaa yakrahu waxa uu nacayaa qofka saaxibulqur'aanka almisaaxa kaftanka khawfan min allacib yacni wuxuu nacayaa kaftanka inuu kaftanka u jiido oo uu ku daro dadka laacibiinta ah oo lacib uu dhex galo markaa ciyaar uu galo fa in masaxa hadduu kaftamayo qofka saaxibulqur'aanka rag iyo dumar midku noqdaba qaala xaqan kaftankiisu xaq buu noqonayaa yacni wax xaq ah ayuu ku kaftamayaa wax baadila kaftan ka dhigan maayo waayo nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam saxaabada ayaa waxay ku yidhaahdeen yaa rasuula allahi innaka tudaacibuna adigu waad nala kaftantaa qaala wuxuu yidhi nebigu innii laa aquulu ilaa xaqaa haddii aan ila kaftamaya xataa waxaan xaq ahayn ma idhaahdo marka qofku saaxibulqur'aankahi marka uu kaftamayo kaftankaasu inuu u soo jiido ciyaar uu iska ilaalinaya hadduu kaftamayana wuxuu ku kaftamayaa shay xaq ah baasita alwajhi mid weji furfuran waa inuu ahaadaa ee weji cabuus uusan noqon طيب الكلام hadalkiisu mid uu wanaagsan yahay waa inuu noqdaa oo hadal xun waa inuusan ku hadlin man kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut qofka ilaahay iyo maalinta qiyaamaha rumaysan yacni waxa laba mid unbuu u dhexeeyaa inuu khayr ku hadlo iyo inuu aamuso marka qofka saaxibulqur'aankaahi markii ummadda uu la kulmo qofka uu la kulmayo weji furfurnaan waa inuu kula kulmaa weji cabuus waa inuusan noqon haddii uu hadlayana hadal wacan waa inuu ku hadlaa laa yamdaxu nafsahu qofka saaxibulqur'aankaahi naftiisa ku ammaani maayo bimaa fiihi naftiisa wax ku sugan waxa uu ku tilmaaman yahay oo wanaag ah naftiisa ku tilmaami maayo khawfan min alcujub cabsi uu ka cabsanayo yacni waxa weeye tacajub inuu naftiisa uu usoo jiido fa kayfa bimaa laysa fiihi haddii la yidhi yacni waxa naftiisa ku sugan oo wanaaga ayuusan ku ammaanin naftiisa maxaad u malaynaysaa markuu naftiisa ku ammaano waxaanan ku sugnaynba oo kadib markaas ay noqoto marka marnaba wuu iska ilaalinayaa qofka naftiisa inuu ammaano waayo waxay u keenaysaa tacajub bay u keeni kartaa yaxdaru min nafsihi naftiisa ayuu ka digtoonaanaya an taqlibahu inay kaga adkaato calaa maa tahwaa ay calaa maa tahwaahu bih wixii ay jeceshahay inuu ka celiyo ayuu aad iyo aad uga digtoonaanaya yacni inay naftiisu ka qaalib noqoto xumaanta ay u jiiddo ayuu maarata ka digtoonaanayaa yaxdaru wuxuu ka digtoonaanayaa min nafsihi naftiisa an taqlibahu inay kaga adkaato calaa maa tahwaa waxay jeceshahay oo mima kiina ah waxa ay jeceshahay naftu yuskhitu mawlaahu allihii abuurtay caragelinaya wax ilaahay caragelinaya naftiisu waa inuusan kaga adkaanin wax allaaliya wixii ilaahay caragelinaya naftiisa waa inuu ka celiyaa nacam laa yaktaabu axadan qofna ma xamanayo qof uu muslima uu xamanayaaba yaraatee ma ay jirto wuu iska ilaalinaya qiibada waayo qiibadu waa muxarama waa qofka waxa weye xasanaadkiisa ay baabi'inaysaa dembina waa usoo jiidaysaa nacam laa yaktaabu axadan qofna ma xamanayo xankana markii nebiga la weydiiyey wuxuu yidhi dikruka akhaaka bimaa yakrah taasaa nebigu ku fasiray waa inaad walaalkaa ku sheegtaa muslimka ah wax naftiisa ku sugan haddii aad ka sheegtid waxaana naftiisa ku sugnayn waxa weye waa buhtaan waad ku iftirootay labaduna waa camal muxarama labadooduba yacni firyada qofka muslimka lagu iftiroodo
oo waxaanan jirin oo aan ku sugnayn laga sheego iyo waxa uu dhibsanayo laga sheego labaduba waa xaaraam weeye walaa yaxqiru axadan qofna ma xaqirayo qofna ma liidayo waayo naftaada ayaa laga yaaba inay kasii hoosaysaba marka qof muslima marna xaqirin nacam walaa yaxqiru axadan qofna ma liidayo qof muslima oo uu liidayo oo leeyahay il hoose uu ku eegayo ma ay jirto walaa yasubu axadan qofna ma caayayo yani qofka muslimkaahi marnaba sabaab ma aha yani cayda aad iyo aad uga fogaanaya qofka muslimkaahi gaar ahaan qofka saaxibu qur'aanka ah walaa yashmatu bimusiibatin qof muslim ah musiibo la soo gudboonaatay ku farxi maayo haddii walaalkaa muslima musiiba la soo gudboonaatay weliba walow yani xumaanimahin ka dhaxaysee ha ku farxin maarata musiibada ku dhacday lianna waxa weye haddaa ku farxayd waxay keenaysaa adigana mid ka dar ilahay inuu kugu salado walaa yashmatu bimusiibati axadin qof kaleeto musiibo ku dhacday ku farxi maayo nacam walaa yabqi calaa axadin qofna ma dulminayo yani qof muslima xataa hadduusan muslim ahayn oo uusan waxa weeye mudnayn inaad la dagaalanta xataa gaalada baqiyu meelna kuma banaana muslim iyo gaal midnaba nacam baqiyigu waxa weye waa dulmi walaa yabqi calaa axadin qofna ma dulminayo walaa yaxsuduhu mana xasdayo yani xasadka qofka la xasda macnaheedu waxa weeyaan xasadku laba macnuu leeyahay fi luga alcarabiya wa fi lugati sharci laba macnuu leeyahay macnaha hadda uu ka hadlaya waxa weeyaan waa kii madmuumka muxaramka ahaa waa qofka muslimka ah nicmada ilaahay uu siiyey oo adiga uusan ku siin inaad tidhaahdid ilaahu aniga iga soo qaado asaga seeji maalan ilmo fiican baa la siiyey inaad ku fakartid ilmahaas wanaagsan ilaahay uu siiyey inuu ilaahay inuu dhaafiyo waa kaa cilmi badan yahay cilmigaas ilaahay inuu dhaafiyo yani xasadka noocaas oo madmuumka kaa weyn ama midka dib nooga imaan doona oo qibtada la yidhaahdo oo qofka kaa aqoonta badan ama kaa geesisan yani nicmo adiga ilahay uusan ku siin qofka markii ilaahay uu siiyey inaad tidhahdid ilaahu nicmada hebel aad siisoo kalta isii sida cilmigoo kaleeto taa waxa weye waa midda qibtada liya waa noo imaan doontaa kan laakiin kii manhigaa weeyaan oo shareecadu aysan ogolayn inaad jeclaysatid qofka muslimkaa yani khaslada wanaagsan ama nicmada ilaahay u galay ilaahay inuu ka qaado nacam oo adiga ilahay kugu soo wareejiyo walaa yaxsuduhu qofka muslimka ma u xasdayo walaa yusii'u danna una mala xumayn maayo biaxadin qofba qof uu mala xun u malaynaya ma ay jirto ilaa bimaa yastaxiq qofka wuxuu mudan yahay mooye yani qofka markaad malaynaysid mala rasmi ah waa inay tahay waxaan ku malaynaysid laakiin waa inaadan qofka mala xun aadan u samayn qofka muslimka ah yaxsudu bicilmin cilmi haddii qofka uu kaa badan yahay waa ku xasdayaa oo xasadkaa waxaa laga wada waa qibtadii yani wuu jeclaysanayaa ilahay cilmiga uu siiyo kaleeto ilahay adigana uu ku siiyo oo jeclaysanaya qofka maaragtay saaxibu qur'aanka wayadunnu bicilmin qofka markuu malaynayana wax uu ku og yahay buu ku malaynayaa yani dhanni yani waxa weye baatil ah ku malayn maayee marka aad malaynaysid waxaad ogtahay ku male nacam wayatakallamu waa uu ka hadlayaa bima fi linsaani qofka wax ku sugan oo min caybin ceeb ah bicilmin cilmi ahaan ayuu uga hadlayaa qof markii aad naqdinaysid oo aqoon naqdiga aad u leedahay maalan qofku waxa weeye qof dhaalim ah oo ku dulmiyey ayaad ka dacwoonaysaa wuxuu yahay baad ku sheegaysaa markaas waa cilmi baad u leedahay ama waxa weeyaan caalim baad tahay oo ruwaaddii xadiidka raawi ka mid ah oo inuu daciif yaad og tahay ayaa waxaa leedahay raawigaas waa daciif marka lix arrimood ayaa kiibada laga soo reebaa lixdaas arrimood mid kastoo ka mid yihi yani qofku haba dhibsadee qiibo noqon mayso midda u horreysa waxa weeyaan qofka dhaalimka ah oo ku dulmiyey ama qof kala dulmiyey inaad tidhahdo qofkaasu markii suldaanka ama qaadiga aad u sheegaysid dulmiga noocaasu sameeyey waa lagu ogolyahay ama waxa weeyaan waa isticaana calaa tagyiiri munkar yani qof yani waxa weye munkar samaynaya ayaa rabtaa munkarkii inaad ka celisid ayadana waxa weeyaan wuxuu dhibsanayaba ha noqotee waad sheegaysaa tan saddexaad waxa weye waa alistiftaa markii fatwo aad samaynaysid markii fatwo aad dalbaysid oo caalimka aad marta fatwo aad weydiinaysa aad leedahay dhalamanii akhii fulaan
ninkii hebel ahaa baa i dulmiyey, taasna waa lagu ogol yahay. waxaa kaleeto oo la ogol yahay oo midka afraad ah, yacni waxa weeye qofka xumaan markuu samaynayo, shar markuu samaynayo, inaad yacni ummaddii uga digtid bidcadiisii iyo macaasidiisa, iyadana waa la ogol yahay. tan afraad tan shanaad baan dhihi lahaa waxa weeyaan waa marka qofka uu yahay mujaahir bilfisqi walbidca, yacni bidco iyo fisqi buu la jahrayaa, ayadana waxa weeyaan naqdiga aad naqdinaysid shareecadu waa ku ogoshahay, cilmi baad u hadlaysaa. kan lixaad waxa weeyaan waa qofka markaa tacriifinaysid, maalan waxaad tidhi alacmash aw ilacraj aw ilacmaa, yacni qof yacni waxa weeyaan ninkii langaraha ama maaragtay ninkii maaragtay indhaha la'aa, taas waa markii min baabi tacriif ay tahay, wax dhibaataa male, wax dhibaataa male. nacam. wayaskutu wayaskutu waa ka aamusayaa can xaqiiqati maa fiihi bicilmin, qofka waxa ku sugan xaqiiqadiisa ayuu cilmi ah isagoo og ayuu ka aamusaya, dar alla uga aamusaya markuusan xumaan samaynayn. qad jacala alqur'aana qur'aankii wuxuu ka yeelayaa, wasunnata sunnadii wuxuu ka yeelayaa, walfiqha fiqhigii daliilahu midka hogaaminaya, ilaa kulli khuluqin dabeecad dhammaanteedna u hogaaminaya, dabeecaddaasoo xasanin wanaagsan, jamiilin qurxoon. yacni qur'aanka iyo xadiidka ku dhaqankiisa iyo fiqiga uu kala soo baxayo wuxuu ka dhiganayaa hoggaanka u hoggaaminaya akhlaaq kastoo qurxoon. nacam, yacni qur'aanku waxa uu kuu hoggaaminayaa, axaadiidta nebigu kuu hoggaaminaysaa akhlaaq kasta midda ugu quruxda badan. nacam, yacni micnaha waxaa laga wadaa qur'aankii iyo xadiidkiibuu ka dhaqan dhiganaya, sida nebiguba dhaqankiisu uu ahaa inuu qur'aanka uu ku dhaqmayey awaamirtiisa sharciga ah, nawaahidiisana wuu iska ilaalinayay. xaafidan mid ilaaliya ayuu ahaanayaa qofka saaxibulqur'aanka lijamiici jawaarixihi, xibnihiisa idil ahaantooda wuu ilaalinaya. muxuu ka ilaalinayaa? cama nuhiya can, wax allaaliya wixii laga reebayo sharcigu u diiday, xubnihiisa waa ka ilaalina. xubnihiisa waxaa laga wadaa carabka, labada gacmood, labada lugood, jamiicu jawaarixihi wuxuu ka ilaalinaya wax allaaliya wixii sharcigu u diiday. in masha hadduu soconayo, mashaa bicilmin, meesha uu marayo hadday tahay meel sharcigu u oggolaaday waa u soconaya. hadday tahay socodkaasu socod gaarsiinaya, yacni meel muxarama inuu galo, dee waa iska ilaalinaya. in mashaa marka uu soconayo, mashaa bicilmin, cilmi buu ku soconaya. wa in qacada hadduu fariisanayana, qacada bicilmin, cilmi buu ku fariisanaya. yacni meeshaas aad fariisanaysid waa inay tahay meel sharcigu kuu oggolaaday inaad fariisatid, waa inaysan noqon yacni waxa weeyaan makaan maqsuub ah. nacam. yajtahidu waa uu dadaalaya qofka saaxibulqur'aanka, muxuu ku dadaalayaa? liyaslama annaasu, dadku inay ka nabad galaan min lisaanihi, carabkiisa, wa yadihi, gacantiisa. waa sidii nebigu yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalam, xadiidka muttafaqa ah ee bukhaari iyo muslim ba ay soo saareen, ee nebigu yidhi almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi, qofka muslimka dhabtaahi waxa weeyaan waa qofka muslimiintu ay ka nabad galeen carabkiisa iyo addinkiisaba. nacam. marka sidaas darteed baa sheikhu wuxuu yidhi yajtahidu waxa uu ku dadaalayaa qofka saaxibulqur'aanka liyaslama annaasu, dadka inay say uga nabad galaan min lisaanihi, carabkiisa, wa yadihi, gacantiisa. afkiisa iyo addinkiisa waa in laga nabad galaa. nacam. laa yajhalu, wax jahliya xumaana ma samaynayo. fain juhila calayhi, haddii xumaan lagu sameeyo oo jahli lagu sameeyo, xumaan lala soo qaabilo, xalima waa dul qaadanaya, waa u dul qaadanayaa. haddii xumaan lala soo qaabilo waa dul qaadanaya. walaa yadlimu, mana dulminayo asagu, waayo nebigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam ducadiisa iyo dabeecaddiisu waxay ahayd inuu ku ducaysanayo ducadan xadiidka thaabitka, allaahuma inii acuudu bik, ilaahu waan ku magangelayaa, ilaahu waan ku magangelayaa an adilla yacni inaan dhumo, an adilla inaan dhumiyo, ow udalla ama la i dhumiyo, in anigu wax dhumiyo ama dariiqa xaqaa la iseejiyo, ilaah waa kaa magan galay. ow azilla oo uzal, inaan yacni waddadii saxda ahayd inaan ka siibto ama maaragtay layga sidbiyo. ow adlima ow udlama,
inaan dulmi sameeyo ama dulmi la igu sameeyana ilaah waa kaa magangalay aw ajhala aw yujhala calay in yacni waxa weye safaha la igu sameeyo ama aanu dadkii jahaalo iyo safaha aan ku sameeyo ilaah waa kaa magangalay marka waa midda uu leeyahay sheikhu fa in juhila calayhi haddii wax jahliya loola yimaado iyo safaaho iyo waxaan asaga qaban haddii lala soo abbaaro xalima waa dul qaadanayaa walaa yadlimu ma dulminayo nacam fa in dulima haddii dulmi lagu sameeyo oo dulmi lala soo qaabilo cafaa waa cafinaya waa sida ilaahay ba uu yidhi wacibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna addoommada wanaagsan waa kuwa markay soconayaan dhulka tartiib u socda waidaa khaatabahum aljaahiluuna kuwa jaahiliinta hadday la hadlaanna oo xumaan ka sheegaanna qaaluu waxay leeyihiin salaama yacni uga jawaabi maayaan xumaantii ugu jawaabi maayaan waa iska cafinayaan walaa yabqii kuna gardaroon maayo qofna fa in bugiya calayhi haddii asraar iyo gardarre lala soo abbaaro sabara waa uu sabrayaa yakdimu gaydahu caradiisuu qarinaya haddii maaragtay laga caraysiiyo carada laga caraysiiyo muqtadaheeda ma samaynayo liyurdiya wuxuuna caradiisa u qarinaya liyurdiya rabbahu siduu ilaahay rabbigii abuurtay siduu u raalligeliyo ayuu caradiisa u qarsanaya wa yugiidu caduwahu cadowgiisa gaalkaana uu ka caraysiinaya mutawaadicun fii nafsihi naftiisa mid u tawaaducaya ayuu noqonayaa oo mar kastaba tawaaduc uu ka muuqdo yacni isla weynidu iska ilaalinaya idaa qiila lahu alxaq xaq haddii loo sheego idaa qiila lahu alxaq xaq haddii loo sheego shay xaq haddii lagu baraarujiyo oo saa ka dahsoonaa qabilahu xaqa wuu aqbalaya wuu qaadanaya tawaaducayna ka mid tahay min sagiirin midka ka yar ama xag aqoon uga yar ama xag da ahaan uga yar haddii xaq u sheego iskala weynaan maya wuu qaadanaya aw kabiirin kan ka weyna wuu ka qaadanaya ama ka da'weyn ama ka aqoon badan labadaba nacam yacni xaqu ka ina mankaan meel allaalay meesha xaqu kaaga yimaado ha iskala weynaan xaqa waxa weye cid walba ka qaado yadlubu alrifcata qofka saaxibulqur'aankaahi waxa uu doonayaa alrifcata sarrayn ayuu doonayaa dalbayaa min allahi ilahay buu ka dalbayaa ilaahay darajo sare inuu geeyo mansilo sare ilaahay inuu gaarsiiyo ayuu ilaahay ka dalbanaya laa min almakhluuqiin kuwa bani aadamka yacni waxa weeyaan inta la abuuray oo bani aadamku uu ka mid yahay sarrayn ka dalban maayo laakiin culuwiga iyo martabada sare ilaahay buu weydiisanaya maaqitun saaxibulqur'aanku qofka qur'aanka saaxiibka u ahi waa inuu yahay mid u caroonaya lilkibri kibirka iyo isla weynanka mar kasta waa inuu caroodaa waa inuu ka fogaadaa khaa'ifun calaa nafsihi naftiisa mid uga baqa waa inuu ahaadaa minhu min alkibr naftiisana kibir waa inuu uga baqaa oo uusan is odhan adigu kibir kaa surtoobi maayo laa ya'kulu bilqur'aan qur'aanka kasab ka dhigan maayo wax uu ku shaqaysto oo uu ku noolaado ka dhigan maayo qur'aanka nacam markuu dadka qur'aanka uu barayo hadafkiisu noqon maayo dhaqaal ha ku siiyeen haddii ay wax ku siiyaan yeelkada laakiin ha u niyoonin ujradii qur'aanka inuu yahay nacam walaa yuxibbu ma uu jeclaanayo an tuqdaa lahu in asaga loogu gudo bihi qur'aankii alxawaa'iju danihiisa in loogu shaqeeyo oo loo adeego ma uu jeclaysanayo qur'aanka yacni qur'aanka daraaddiis dadka uu barayo in loogu khidmeeyo jeclaysan uu maayo nacam qofkii maaragtay qur'aanka uu barayay hadduu wax u qabto waa uga mahad celinayaa laakiin waa inaysan qalbigiisa aysan soo gelin qur'aanka dadka bar si adiga ay khadam kugu noqdaan kugu shaqeeyaan shaqaale kugu noqdaan walaa yascaa bihi kala daba ordi maayo qur'aankii ilaa abnaa'i ilmuluuk dadka madaxda ah ilmahooda kala daba carari maayo ee waxa weye midka kan boqorku dhalay ama dadka maaragtay maalqabeenka ilmahooda iyo kuwa fuqarada ilmahooda isku si ugula dhaqan laakiin inaad dadkii fuqarada ahaa ilmahoodiina ka carartid abnaa'ul muluugana qur'aanka kala daba orodid taas waa mamnuuc waxay tusinaysaa inaadan dar alla aysan ka ahayn tacliinta waxbarashada qur'aanka aad baraysid inaysan dar ahlayn bay tusinaysaa walaa yujaalisu bihi qur'aankii ula fadhiisan maayo al aqniyaa dadkii aqniyada ahaa
la ag fadhiisan maayo liyukrimuuhu say u karaameeyaan yacni kala daba ordi maayo oo la ag fadhiisan maayo dadka aqniyada ah xoolaha haysta ee dadka waxa weeyaan aqniyada ah kii doonaya qur-aanka inuu kaa barto qaninimadiisa hawala daba ordine dar alla u bar sida fuqarada aad u baraysid laakiin haddii hadafkaagu noqdo aqniyada inaad ugu dhowaatid qur'aankii waa camal manhiya camalkaasu inkasaba annaasu dadku hadday ka shaqaystaan min addunya adduunyada xaggeeda alkathiira in badan hadday ka shaqaystaan bilaa fiqhin ayagoo aan aqoon u lahayn kasabka ay ka shaqaysaneen maxaa xalaala maxaa xaraama walaa basiiratin aqoonna aysan u lahayn kasaba huwa isagu qur'aanka qofka saaxibu qur'aanka wuu shaqaysanayaa alqaliila in yar buu ka shaqaysanayaa bifiqhin asagoo u aqoon leh intaa yar iyo wa cilmin cilmi halkaana wuxuu kaga hadlayaa sheikhu dadka badankoodu markay tijaaraysanayaan maxaa xalaala maxaa xaaraana ma u eegayaan adduunyada maalku siduu u soo maro waa uga shaqaysanayaan ayagoo aan aqoon u lahayn maxaa xalaala maxaa xaraama laakiin adiga markaad shaqaysanaysid waa inay shaqadaadu noqoto maxaa sharcigu ii oggolaaday in yar oo sharcigu kuu oggolaaday ayaa wuxuu kaaga khayr badan yahay xaaraan fara badan oo waxa weeye aadaan u aaba yeelin waxaa kaaga khayr badan in yar oo waxa weeyaan kitaabkii iyo sunnadii aad uga meel dayday inkasaba annaasu dadku haddii ay ka shaqaystaan min addunyaa adduunyada xaggeeda alkathiira almaal alkathiira maal aad iyo aad u fara badan hadday ka shaqaystaan dadku oo bilaa fiqhin fiqh la'aana yacni aqoon aysan u lahayn walaa basiiratin cilmi la'aan ay hadday adduunyada ku kasbadaan maal badan ay soo diyaarsadaan kasaba saaxibulmaalku asagu waa shaqaysanayaa huwa isagu alqaliila in yar oo bifiqhin wa cilmin ku qotonta fiqhigii kitaabka iyo sunnada iyo cilmigii kitaabka iyo sunnada in labisa annaasu dadku haddii ay xirtaan allayina allibaas allayin yacni dharka aad iyo aad u jilicsan alfaakhira ee aad iyo aad u qiimaha sarreeya labisa huwa saaxibulqur'aanku wuu xiranayaa min alxalaali xalaasha xaggeeda maa yasturu cawratahu cawradiisa waxay qarinaya dadku haddii ay ku tartamaan dharka aad iyo aad qaaliga u ah ayagoo aan u eegayn maxaa xalaala maxaa xaaraama qofka saaxibulqur'aanka ahi inuu ku qanco yacni waxa weeye dharka midkiisa cawrada u qarinaya nacam in wusica calayhi haddii loo barwaaqeeyo oo ilaahay maal badan uu siiyo qofka saaxibulqur'aanka wasaca ahalkiisa iyo ilmihiisa iyo aqaaribtiisa waa u waasicinaya wax fiican buu siinaya haddii ilaahay qani kaa dhigo yacni waxa weeye dadka ay nafaqadooda waajibka kugu tahay ha ku ciriirin nolosha ha ku ciriirina u waasici nacam wa in umsika calayhi haddii waxa weeye lagu ciriiriyo nolosha ciriir ay ku noqoto faqiir uu noqdo amsaka yacni waxa markaas uu awoodo buu siinayaa dadka ahalka yacni ahalkiisa iyo ilmihiisa haddii yacni ay tahay uu noqdo mid faqiir ah yacni waxa weeyaan waxa uu bixinayaa wixii uu awoodo ayuu maaragtay nafaqadiisa ayuu siinayaa waa sida ilaahay u leeyahay fi suurati talaaq liyunfiq duu sacatin min sacatih qofka yacni waxa weeye hodankaahi yacni hodantinimadiisa ka bixiyo nafaqadeeda oo kale ha bixiyo waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah qofka laakiin faqiirkaahi intii ilaahay siiyey buu wax ka bixinaya nacam yaqnacu bilqaliili in yar haddii ilaahay wax yar uu ka dhigo noloshaada yaqnacu bilqaliili inta yar oo ilaahay siiyey buu ku qanac qaadanaya qofka saaxibu qur'aanka fayakfii baa ku filnaanaya haddii ilaahay noloshaada uu ka dhigo nolol yar oo kooban ku qanaco qaado oo waxa weeye ku qanac intaa yar oo ilaahay ku siiye waa kugu filnaanaysaa wayaxdaru calaa nafsihi naftiisana wuxuu yacni kaga digtoonaanayaa min addunya adduunyada xaggeeda maa yudqiihi wax xadka ka bixinaya yacni in adduunyada dhexdeeda intaad joogtid haddii maal badan ilaahay ku siiyo maalkaas xadka yuusa kaa saarin xuduudda shareecada uga dhaqan oo waxa weye naftaada uga nafaqee ahalkaaga wax ka sii muslimiinta yacni cid allaaliyo ciddii aad uga kaalmaysid uga kaalmee laakiin duqyaan iyo kibir yuusa ku keenin maalka nacam yatbacu wuxuu raacayaa waajibaat alqur'aan qur'aanka waajibaadkiisii iyo axkaamtiisii buu raacayaa wasunnati sunnada axkaamteeda ya'kulu acaama cunada ayuu cunayaa bicilmin
علمي بكونية يعني علمي بكونية وحا لغا ودا يعني طعام حلالة أيا نولشي سوكا دغنيا ويشرب بعلم مركو عبينا شراب حلال أيو عبيا midka muxaramka waa iska ilaalinaysaa waa iska ilaalinaya wayalbasu wayalbasu libaasa dharkana wuu xiranayaa bicilmin marka dharka uu xiranayana yani waxa weeyaan dhar uu og yahay kasabkiisa meesha laga keenay ayuu xiranaya xalaal u ah yani midka ilaahay uu ka xarimay sida ragoo kaleeto xariirta inay xirtaan waa iska ilaalinaya nacam wayanaamu bicilmin marka uu seexanayana cilmi buu ku seexanayaayo يعني سيدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذكارته الأذكار عند النوم يعني والنبي سمين شرا وكلاته سلاس مرت أصيحنية ويجامع أهله أهل كسول كل ما إنك صاحب القرآن كاهي بعلم علم أهان أصغو مركا وهير كسول كل ما وإنه علم كل ما ووقت واحد شرا قفوا إنكم مركو أهل كسول كل ما أي حرام تايم كل ما sida gabadhu markay xaaido tahay oo kaleeto markuu ahalkiisa la kulmayo waa inuu cilmigii kitaabka iyo sunnada waa inuu kula kulmaa nacam wayasxabu alikhwaana walaalaha ayuu la saaxiibayaa bicilmin cilmiguu kula saaxiibayaa oo waxa weeyaan waxuu noqonayaa nebigu sala allahu calayh waali sallam siduu yidhi kullu mrin calaa diini khaliili falyandur axadukum man yukhaaliluhu yacni qof kastaaba qofka uu la saaxiibay dhaqankiisuu yeelanayaa sidaas aawood baa nebigu wuxuu yidhi qofka uu la saaxiibayo ha iska eego marka waxa weeye walaalaha aad la saaxiibaysid cilmi kula saaxiib waa inuu yahay qofka aad la saaxiibaysid qof mudan inaad la saaxiibtid qof wanaagsan la saaxiib qof xun la saaxiibi yazuuruhum walaalaha waa uu ziyaaranayaa waa booqanayaa bicilmin cilmi buu ku booqanayaa yacni sunnada aad soo ku dhaqmaya yacni marka walaalaha aad booqanaysid yacni waxa weeyaan وعلمي بعد كوب غنيسا زيارة ما نقوليسو يوميا ما نقوليسو يعني غبي بنقوليسا مال أي صوب غنيسا نعم ويستأذن عليهم بعلم علمي أيوكو عند البيا مركي صوب غنيسي يعني وحوي استدام بعد سوينيسا قريجي هودي الدلق ما أورنيسي دي يعني استدام بعد سوينيسا الباب قد صوب راعيسا صدح شير مركي أتقرع هذه اللي غافر وايو كنقو لقوما إدمين حتى هذو أنت كم مغلق ويرا هذو سكرها له ما أنت قابل ما يه كنغو يجاور جاره درس كيس أيو لدرسيا بعلم علمي بكل درسيا يعني وحويان يعني وحا لغا ودا markii dariska aad la darsaysid yani xuquuqdii jaarkaaga waa inaad taqaanaa oo dhibkaaga aad ka ilaalisaa jaarkaaga yani wax allaaliya wixii wanaag aad u samayn kartana u samee wax allaaliya wixii dhibaatahana ka ilaali saasaa laga wadaa yujaawiru jaarahu bicilmin yulzimu nafsahu naftiisa wuxuu ku waajib yeelayaa bira waalidayhi labadiisa waalid haddii uu nolol ku soo gaaro inuu u ixsaan falo ayuu naftiisa ku waajibinaya fayakfidu lahumaa janaaxahu aad iyo aad buu dhinaciisa ugu raaricinayaa u naxariisanaya labadiisa waalid wayakfidu lisawtihimaa codkooda ayuu wuxuu ka hoos marinayaa sawtahu codkiisa marka uu la hadlayo hooyo iyo aabba markaad la hadlaysid codka hooyo iyo codkaaga marka hooyo la hadlaysid kaaga waa inuu hooseeyaa aabba markaad la hadlaysid codka aabba iyo codkaaga waa inuu hooseeyaa taasuna waxay ka mid tahay aadaabta qur-aanka iyo sunnaduba ay noo sugayaan waa ka ilaahay odhanaya subxaanahu wa tacaala waqadaa rabbuka anlaa tacbudu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaana yacni cibaadadii ilaahay la caabudayey ayaa ilaahay ku xijiyey labada waalid in loo ixsaan falo nacam marka labadaada waalid aad iyo aad ugu ixsaan fal yacni codka xataa markii ay hadlayaan codkaagu yuusan ka sara noqon codka labada waalid wayabdulu lahumaa maalahu haddii uu xoolo leeyahana xoolihiisu wax ka siinaya wayanduru ilayhimaa labada waalid waa uu eegayaa marka uu eegayo qofka saaxibulqur'aanka bicayn ilwaqaar il weynaan iyo ixtiraam xambaarsan aragti xambaarsan yacni weynayn iyo xurmo xambaarsan ayuu ku eegayaa iyo warraxmati naxariis marka uu eegayo il naxariis buu ku eegayaa il waxa weeyaan xaqiraada marna ku eegi maayo yadcuu lahumaa labada waalid waxa uu ilaahay uga baryayaa bilbaqaa'i ilaahay cumrigeed inuu baaqi yeelo oo cumrigeeda cumri barakaysan ilaahay u ka dhigo nacam wayashkuru lahumaa
وأمهد علينا يا لبدا والد عند الكبر مركي أكتاد كوجبوبان وأمهد علينا يا ما أودب سنة لا يضجر بهما يعني أعرض ما يا لبدا والد ولا يحقرهما من حقيريه يعني آدي وحود ذاليا وحلالية وحي فرح قلينية إنه سميه لا هو كورنية وغضى ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما يعني أف يعني وين عرنا يا مرنا هدين عنانا وقل لهما قولا كريما قول آدي أدونا السماء كويرادا هذا البهذا وكترد بدن يهي أو كدب عسن يهي كويرادا لبدا والد نعم إن استعانا به hadday kaga kaalmad doonaan calaa taacatin daaco acaanahumaa daacadii waa ugu kaalmaynayaa shay ilaahay ay ugu dhowaanayaan hadday ku weydiistaan inaad ugu kaalmaysid ugu kaalmee wain istacaanaa bihi qofka saaxiibul qur'aanka labada waalid hadday uga taageero dalbaan calaa macsiyatin shay macsiya hadday ku yidhahdaan nagu kaalmee lam yucinhumaa ugu kaalmayn maya calayha macsiyadaas labada waalid shay ilaahay yani waxa weeyaan uu ogolaaday oo daaco ah haddii ay kaaga kaalmid doonaan oo yidhahdaan u kaalmee waajib waxaa ku ah inaad ugu kaalmaysa xataa waxyaalaha mubaaxa ah waa inaad ku adeecdaa laakiin shay macsiye ah hadday kugu yaraan oo yaan shaygaa macsiyadaas aawadan u samey hadday ku yidhahdaan yani ma ka yeelaysid waayo nebiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi waali wasallam xadiidka muttafaq لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لفتي كرة وحوها لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف يعني وحوي عدنا لقوا أديع ما إلهي معصية ديس لكن والدك يعدك استنبط إلا أطيعه معروف كان لقوا أديعيه نعم مرك حق إلهي باكوين حق استا لبدا والد حق وذا وحا كوين حق إلهي باكوين مرك هذا شيء معصية كويران كيالي من ورفق بهما لبدو وأون حريصان لبدو والد وأون حريصان في معصيته إياهما شيء معصية مركي كوي يران وأد كدي ديسيد ست ترتيب أقديد يعني أضو أنكو حناقين أو ترتيب أيا وحال هاي أبي هويو شيئا إلهي بحرمي يعني أضو دمرنية أيا كدي ديسا لكن مركي كدي ديسيد هذا ضيك هموتشيني يحسن الأدب آدابتي بهاقاتشينيا ليرجع سي نقضان آدابت لبدا والد وكأدب قادنا كأدب سنيو أيها قاتشينيا ليرجع سي لبدا والد ونقضان عن قبيح ما أراد وحا دونين حون إني كنقضان يعني الشيء محرم مركي كيرادان نصمي أولد الأسماء أياد كود ديديسي سي يعني لطيفان أياد كود ديديسا سي أرنتا حون أي وصو نقضان لكن هذا تكو قيليسي ترى شيء عن محرم وين كي يلي مايو من دونيين أن كي يلو waxay keenaysaa inay arrintii ku madax adeegaan oo xaaraamta ay ku sii adkaadaan nacam oo mima kiina laa yaxsunu bihima ficluhu yani wixii qabiix ahaa oo aysan habboonayn inay sameeyaan yani waxa weeyaan uga edabso markii aad ka diidaysid ee aad iyo aad ha ugu adkaanin yasilu raxima qaraabadii buu xiriirinaya qofka saaxiibul qur'aanka qaraabadu ama dhinaca hooyaa ka yimaadeen ama dhinaca aabe meel kasta ay ka yimaadaan dadka qaraabada waa inaad raximkii waa inaad xiriirisaa wayakrahu alqatiicata wayakrahu waxa uu nacaya alqatiicata yani waxa raximka in la gooyo aad buu u dhibsanaya man qatacahu qofka gooya lam yaqtachu ma goynaya raximkaaga adiga qaraabadaadu hadday ku gooyaan adigu ha goynin nacam yani nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi xadiidka saxiixa laysa alwaasilu bilmukaafi kan xiriiriyahahi ma ahan qofka maaragtay qofka wixii loo sameeyo yani ka abaalguda walaakin alwaasilu qofka abaalgudaa waxa weeyaan qofka waasilkaha xiriiriyaa waxa weeyaan alladii idaa quطicat raximuhu qaraabadiisii markii la gooyo iyo raximkiisii wasalaha asagu raximka xiriirinaya yani qofka mukaafi ah oo abaalguda oo raximku markuu wanaag ku sii inaad u abaalgudid taas xiriirin lama yidhahda xiriirinta rasmigaah waxa weeyaan oo fadliga badan leh raximkaaga ama qofka qaraabadahi markuu gooyo adigu inaad xiriirisid kaas way midka maarta afdalka ah
man casa allaha fiihi qofka ilaahay yani sida sababtiisa ku caasiya ataaca allaha fiihi sababtiisu ilahay ku adeecaya. yani waxaa laga wadaa qofku adiga hadduu xumaan kugu sameeyo adigu xumaan ha ku samayni dar alle adigu waxa weye u ixsaanka. yasxabu lmu'miniin mu'miniinta wuu la saaxiibayaa qofka saaxibulqur'aankaahi bicilmin cilmi ahaan ayuu ula saaxiibaya. yani wax markaad la saaxiibaysid yani waxa weeyaan shay wanaagsan baad kula saaxiibaysaa ee shay xun kula saaxiibi maysid. wixii shareecadu ay ku ogoshahay baad saaxiib kula noqonaysaa, laakiin wax muxarama saaxiib uga dhigan maysid. wayujaalisuhum marka uu la fadhiisanayana bicilmin yani waxa weeyaan aqoon uu leeyahay buu kula fadhiisanayaa. laakiin haddii fadhigaas aad dadka asxaabtaada la fadhiisanaysa ay ka dhalanayso yani camal muxarama in la sameeyo iskaga fogow. marka la fadhiisanaysid waxa weeyaan waa markii khayr aad kala faa'iidaysaan. man saxibahu qofka uu la saaxiibo nafacahu waa uu anfacayaayo khayr buu samaynaya. xasanu lmujaalasati waxa uu noqonaya qofka saaxibulqur'aankaahi qof la fariisigiisu uu hagaagsan yahay liman jaalasa cidda uu la fariisanayo. yani qofka aad la fariisanaysid waa inaad khayr u kaa faa'iidaa. in callama hayrahu cid asaga ahayn markuu wax barayo oo qur'aankii iyo xadiidkii uu barayo rafiqa bihi waa u naxariisanayaa. yani si rifqi iyo turitaan uu ku jiro ayuu dadkii diinka u barayaa. laa yucanifu yani cunfi iyo adayg uma adeegsanayo man akhطa'a qofka gafa. qofka aad wax baraysid markuu qalad galo yani waxa weye tashadud iyo aday ku samayn maysid, aday ku samayn maayo. walaa yukhjilhu mana ka xishoodsiinayo. rafiiqun huwa saaxibulqur'aanku rafiiqun waa mid turaya fii umuurihi umuurtiisoo dhan mid waxa weeyaan turitaanka u ka muuqdo iyo naxariista ayuu noqonaya. sabuurun mid sabar badan buu noqonaya qofka saaxibulqur'aanka calaa tacliimi alkhayri khayrka iyo qur'aanka markuu dadka barayo mid aad iyo aad u sabar badan buu noqonaya. lianna dadka marka qur'aanka la barayo ama cilmiga sharciga la barayo dadku isku dabeecad maahan. qof baa aad u dabci adag, qof baa fahmadiisu adag tahay, qofba sibuu kula soo qaabilaya. marka qof ku sabra dadka ardada ah waa inuu noqdaa qofka maaragtay qur'aanka dadka baraya ama xadiidka dadka baraya. ya'nasu bihi lmutacallimu qofka saaxibulqur'aankaahi qofka wax ka baranaya oo qur'aanka ka baranaya waa inuu weheshanayo oo jeclaysanaya. wayafraxu bihi almujaalisu qofka la fadhiisanayaa waa inuu ku farxayaa dhaqan wanaaggiisa. nacam mujaalasatuhu qofka qur'aanka ilaahay ku galladaystay la fariisigiisu tufiidu waa inay faa'iidaynayso khayran khayr waa inay faa'iidaysaa waa inaysan xumaan aysan noqon la fariisiga lala fariisto qofka saaxibu qur'aanka. waayo qur'aanku mar kastaba wuxuu ku farayaa wanaag. mu'adibun waa inuu yahay mid edbinaya qofka saaxibulqur'aankaahi liman jaalasahu cidda uu la fadhiisto. muxuu ku edbinayaa oo akhlaaq uu kaga dhigayaa biadabi alqur'aani qur'aanka akhlaaqdiisa wasunnatu sunnada akhlaaqdeeda. yani qur'aanka akhlaaqda wanaagsan oo uu farayo ayuu ardadii u sheegayaa. in usiiba bimusiibatin markii musiibo lagu haleelo musiibo ay ku dhacdo qofka saaxibulqur'aanka musiiba markii haleesho oo dhibaata ay soo gaadho falqur'aanu wasunnatu lahu mu'adibaan qur'aanka iyo sunnada ayaa edbinaya. oo waxa uu edabta uu ku edbi qur'aanka iyo sunnada ka qaadanaya maxay tahay? markii musiiba kugu dhacda waxaa leedahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun dar allaa u sabraysaa. yaxzanu bicilmin markii dhibaata ay la soo gudboonaato yani waxa weye yaxzanu waa uu naxayaa bicilmin yani markuu tiiraanyoonayo ama uu naxayo bicilmin buu ku naxayaa. yani argagixiisu ma noqonayo mid uu maarata dharkiisa jexjeexo oo camal muxarama uu samay ma noqonayo. markii uu naxayo yani cilmi ahaan isagoo musiibadaas ilaahay inuu ku sameeyey oo ilaahay uu u qadaray isagoo og ayuu tiiraanyoonaya. nacam wayabkii waa ooyaya markuu ooyayo bicilmin cilmi ahaan. yani bukaaga cilmiga ku dhisan muxuu yahay? waa midka bukaaga ilintu kaa imaanayso laakiin aadan qaylinayn. haddii qofku isagoo ooyaya uu qayliyo waa bukaa wax way muxarama weeyaan oo cilmigii kitaabkii sunnadaba khilaafsan. wayasbiru bicilmin markii musiiba ku dhacdo yasbiru bicilmin
aqoonta uu ku leeyahay yani sabarka aqoonta u leeyahay ayuu ku sabraya nacam wayasbiru bicilmin yani bisababi cilmin buu ku sabraya musibada ku dhacday ilaahay inuu kuu qadaray ayaa maarata sababteed baad ugu sabraysaa wayatadaharu markuu dahaaro qaadanayo weyseqaadkii ama dahaaradaas midda suqrada ha noqoto sida weyseqaadka ama tii janaabada ha noqoto ama xaydka yani waxa weye bicilmin buu ku dahaaro qaadanaya yani markaa weyse qaadanaysid sidii nebigu weyse qaato weyse qaado markii qofku janaabo ka mayranayo sidii nebigu uga mayran jiray maaratay uga dahaaro qaadan jiray haddii gabadhu xayd ka mayranayso sidii nebigu u baray yani gabdhaha muslimaadka inay xaydka uga maydhaan oo kaleeto ayuu qofku u dahaaro qaadanaya wayusallii bicilmin marka uu tukanayana yani aqoon isagoo u leh salaadii ayuu tukanayaa waayo nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuni usalli yani salaadaada waa inay noqoto salaaddii nebiga salaad waafaqsan wayuzakii bicilmin maal haddii ilaahay uu siiyo xalaala yani cilmi asagoo u leh buu maalkiisa ka sakaynaya yani inta ka waajibtay yani xoolahaaga wixii ka waajibay adoo u cilmi leh baad maaratay ayaad ka sakaynaysaa wayatasadaqu bicilmin marka uu sadaqaysanayana cilmi buu ku sadaqaysanaya waxa weeyaan waa inuu og yahay waxa uu sadaqaysanaya inay xalaal yihiin inay xaaraam yihiin waa inuu kala yaqaano wayasuumu bicilmin markuu soomayana yani asagoo soomka u cilmi leh maxaa soomka sharciga maxaa ah maxaa soomkii burinaya maxaan burinayn waa inuu ku soomaa wayaxuju bicilmin markuu xajinayana cilmi asagoo u leh xajkii iyo acmaashii xajka ayuu xajinaya wayujaahidu markuu jihaadayana bicilmi buu ku jihaadaya yani hadduusan jihaadkaagu usan ku dhisan cilmi jihaadu ahlilbidac buu noqonayaa ilahayna ka aqbali maayo nacam kadalika markii aad xajinaysid haddaadan xajkii aadan aqoon u lahayn ka ansixi maayo xajkii soomka markaad soomaysid haddii soomka wixii burinaya aadan garanayn waxaa laga yaabaa wixii burinaya adoo samaynaya in waxa weeye aad soontid oo waxa weeyaan waxba isan marka soomkii usan kaa ansixinba wayaktasibu bicilmin markuu shaqaysanayo adduunyadii oo uu tijaaraysanayo yani aqoon waa inuu leeyahay tijaaradii cilmi buu ku tijaaraysanaya nacam wayunfiqu markuu nafaqadii bixinayana oo ahalkiisa uu wax siinayo bicilmin cilmi buu wax ku nafaqaynaya yani waxa weeyaan haddii aadan aqoon u lahayn yani maalka ilaahay ku siiyey sidaa rabtid uma bixin kartid haddii maal alla ku siiyey tabdiir lama ogola inaad maalka ku ciyaartid yani waxa weeyaan waa in yani si dhexdhexaada uu noqdaa waxa aad bixinaysid nacam yanbasitu fi lumuuri bicilmin marka yani waxa weeyaan imbisaad uu samaynayo iyo weji furfurnaan bicilmin buu ku imbisaadayaa oo ku weji furfurnaanayaa wayanqabidu canhaa umuurtiina wayanbasitu fi lumuuri umuurta dhexeeda wuxuu ugu farxayaa bicilmin yani umuurta markii umuur kaa farxisa markii aad la kulantay oo ilaahay kula kulansiiyo yani waxa weeyaan duqyaanyaysa kuu keenine yani imbisaadkaaga iyo farxaagu waa inuu noqdaa bicilmin wayanqabidu canha can ilumuur umuurta qaarkeed waa uu ka soo xirmayaa bicilmin yani umuuraha qaarkood markii ay la soo gudboonaadaan yani waxa weye takabur ku qaabili maayee yani waxa weeyaan inqibaadka markuu samaynayo oo naftiisa xadidayo cilmi buu ku xadidaya qad adabahu lqur'aanu qofka saaxib alqur'aanka waxaa ka adiibinaya oo akhlaaqdiisa samaynaya alqur'aanu qur'aankii wasunnatu sunnadii yatasafaxu alqur'aana halkaasaan ku joojinayna hada wabillahi tawfiiq sala allahuma wasalama calaa muxamadin wacala aalihi wasaxbihi wasallam ajmaciin